ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa si rasmi u bilowday ayaduna xisbiga mucaaradka u cud oo Burco ku soo bandhigay awoodiisa warkan waxa Burco inooga soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Geedi xisbiga loo diga rogtay iyadoo maanta ay ahayd maalintii koowaad ee ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka la filayo inay ka dhacdo 31 bishan aynu ku jirnay May ayaa maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee uu lahaa xisbiga mucaaradka ee UCD kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee UCD ayaa saaka isugu soo baxay fagaaraha kheyryada ee magaalada Burco waxaana halkaasi taageerayaasha xisbiga kala soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee UCD oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faysal Ali Waraabe ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee UCD إن شاء الله تعالى وحنا عندما هذا يتبدل دون إنسان عد إذين هنشا وهرجيس إذين جوكتا هذا دون إنسان عد قشك إذين كورورسا ومقالنا إذين كهجاجسا بالشكور يصدق كذا صوب عيسى بدان كذا واركتان حديان ليس كسبهم إن شاء الله تعالى هل قوار إنسان وحضرت كيكا كقوانيا وقوم كان يمشونه إن شاء الله تعالى خير يطبع رمضان نوغا سمينيا حدي الله يدون وحام دونيا إن العدالة يسنان تذكر هير بوعون يدك مدى إلى وبشقيه تامتا إذن وعد وعلا حتى وحالان دونتان حدي وفقس أيها وحاسمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر حالته إذا كل شعور لما تبالغ إنسان ميدان هين وصلك حقه هيدان لو كنت بالغ ما أنت وعرض إذا هيسا يشترك برحلان فوالوكتين بيها نسنا يوم والوكتين مرافقة نسنا يتاي والوكتين وحبرشنا اللي يسكون بس وقشة قوم الله والوكتين وعاصرن دولة هوسة وعلوه تلقى دولة هوسة وكامت هوسة سيدات كلقة درنسية نورشة إن شاء الله تعالى وحنا بطلنا علينا أنا صوبها إنا درنتان إنا دولة الذي ما تمدري سنين دولة الذي لكننا درنتان إنا دولة الذي ما إن شاء الله تعالى بطلنا علينا sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Injineer Faysal Ali Waraabe waxaanu taageerayaasha xisbigaasi UCD ugu baaqay inay codeeyaan 31 May musharaxiinta ka sharaxan xisbigaasi UCD walaal waxaan doonaynaa inaanu soo laalaabno beejkii chapterkii magaalada dawladda daciifa oo qabyaalad ku dhisan oo yooyoontata oo lahayn wax mudakara inaan soo xidhnaan doonaynaa oon ku bedelo dawlad shaqayso dad aqoon leh ay maanta meel kasta joogaan maan doona walaalayaal magaalada Burco waa arkaysaa Hargeysa waa arkaysaa bal iska daa wax kale magaaladeeda hagaajsan kara weyn oo xashiis ka qaali kara weyn oo rinta ka goyn kara weyn oo cusbitaal hagaajin kara weyn qaran meelisa karta walaalayaal ayaa ma dhayso walaalayaal waan maqlaysan shalayto amba maalin dhaweyto meeyarkii hore ee muraaduhu hadliyay uu ka dhaartay xaaraan inuu cunay waana sheekh gad weyn wala arkaysan galkii dalaaga waanu shaqsaa waa rumaystay waxba muu cunin laakiin waxaynu u dhiibnay kursi aanu awoodeeda haysan iyo dhaqankeeda iyo aqoonteeda leh meel u dhiibno walaalayaal qashin ma taqaanay waxaan xashiis bay naqaan qashin dooyay iska maqan xashiiskan ka goona walaalayaal xashiiskaas ka afkooda waa bedelina waa ka saarana afkooda kumanaan kan taageerayaasha oo sitay calaamada iyo astaamaha musharaxiinta xisbigaasi UCD ayaa lug iyo gaadiid ku soo maray wadooyinka halbowlaha ee magaalada Burco Maxamed Axmed Geedi wararka VOS TV magaalada Burco.